waxaan maanta oo bishu tahay 10 bishii Maarch aan ku sugannahay goobtii uu ka dhacay dibloomka gobolka Sool maanta hawsha ay ka socotay hawshaas oo ah hawshii distribution card ama kaar qaybinta waa hawl aragtideeda iyo qiimaynteeda leh run ahaantiina waxa weeye waa hawl u baahan mas'uuliyad iyo taxaddar iyo dadaal dheeraad ah anigu waxaan rabaa maanta halkan inaan message yar uga diro shaqaalaha komishinka ee goobaha jooga kaar qaybinta haday noqoto gudoomiye iyo haday noqoto xogaye iyo haday noqoto kuyu control iyo haday noqoto cid kasta oo hawshaas ay khusuusto ama nabadgelyaha hata ama wadannimo hata ama isxilqaan baha hata message kan maanta halkan uga diray waxa weeye ummadda mustaqbalkeedii dadka aan la hadlay bay gacantooda ku jirtaa markaan leeyahay gacantooda ku jirtaa waxa laale wixii hawl aynu soo qabananay ee aynu ka soo shaqaynay ee laga soo bilaabo diiwaangelintii iyo qaababkeedii ilaa saamintii goobaha waxaan u malaynayaa muddo aan haddeer 5 bilood ka yaran baynu systemka soo wadnay wax allaale wixii aynu soo wadnay maxsuulkeedii waa hawsha aynu maanta halkan u taagannahay kala dirista goobaha kaar qaybinta dadka waxaan leeyahay xil baa idin saaran ammaana idin saaran ammaanada iyo xilka idin saaran waxa la rabaa si daacadnimo leh inay u gudataan oo qofka iyo kaarkiisa aanay iswaayin dib ka weyn ma jirto qof muwaadina oo isdiiwaan galiyay oo goobtu iska diiwaan galiyay xaq ugu lahaa inuu kaarkiisa ka helo laga waayay ceebta iyo fadeexada iyo dambigaasna wuxuu ku soo noqonayaa qofkii goobta joogay ee mas'uuliyadda qaaday ee waxa loogu talagalay inuu xilkooda waxa weeye uu qaado Soomaalidu waxay tahay ammaanada cirbaa diido dhul baa diido bini aadam baa qaaday ammaano weey bini aadamkuna ammaanadu way la fududahay laakiin ammaanadu dhibta ay leedahay waxaan u malaynayaa inaan maanta isaga warrabay marka anigu waxaan maanta aad ugu dheeraanaya oo aad ugu dardaarmaya in dadka iyo kaadhadhkooda la isla qoorto oo qofna aan loo dhiibin kaadh aanu lahayn hadday caaqil tahay hadday waalid tahay hadday ehel tahay hadday mas'uul tahay iyo haddii cid wax isbedaba ay tahayba inaan qofna kaadhkiisa cidna looga dhiibin qofka muwaadinka isaga kaadhkiisa aan cid u dhaxayn maanta waxa aanu kala diraynaa agabkii iyo shaqaalihii iyo ciidankii iyo hawlwadanadii kale ee ka hawlgeli lahaa kaar qaybinta gobolka Sool kaar qaybinta dalka Soomaaliland waxay ka socotaa 3 gobol iminka oo ka mid yahay gobolka aan ku sugannahay Sool gobolka Sanaag iyo gobolka Saaxil waxaanu halkan ugu sugannahay maanta hawsha kala dirista agabka ee aan soo sheegay iyo ciidamada iyo hawlwadeennada waxayna tahay shaqada loo baxaya kaar qaybintaas oo isugu jirta dadkii isdiiwaan galiyay 2022 oo inay ku jiro aynu dhawaan ka soo baxnay hawsheedii iyo dadkii aan qaadan 2016 diiwaangelintii tan ka horeysay labadiiba way marayaan goob kasta oo ka tirsan gobolka Sool waa la geenayaa dhamaanteed waxaan dadweynaha ku boorinayaa inay hore ka doontaan oo qaataan kaadhadhkoodii oo ka faa'iideystaan xuquuqdooda muwaadinimo oo ah inay cod bixiyaan doortaana qofka ay u arkaan inuu dan u yahay iyaga iyo dalka iyo dadkaba waxaan kale ku boorinayaa shaqaalaha in kaarkaaga lagu aaminay ee ammaanada ay siiyaan qofkii lahaa haddii la waayaana waa ammaanadan ku soo celiyaan halkii ay lahayd si loogu hayo ayna u qaataan muddo marka dambe fursadaasi u soo martay qofka kaarkaasi leh waxaan kaloo aad ugu boorinayaa dadweynaha inay ka faa'iideystaan muddada kooban ee 3 casho ah ee ka bilaabi doonto berrito ay kaar qaybintu socon doonto waxa kaar qaybinta raaci doona 7 casho oo ay ka dhici doonto degmooyinka waaweyn oo qura oo gobolka Sool noqon doona degmada Laascaanood degmada Caynaba degmada Xudun iyo degmada Taleex muddo 7 casho bay sii oli doontaan 7 casho iyo 3 casho marka la isku daro maaha muddo badan marka loo eego sida dalku u kala fog yahay ama dadkeenu reer guuraaga u yahay ama ay macduuruun u yihiin aan markaba ka qaab qaadan kareynin waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay fududeynta hawshatan waxaan mahad gaar ah u celinayaa ciidamada qalabka sida ay ugu horeeyaan ciidanka qaranka ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta iyo dhammaan hawlwadanada kale ee ka mid yihiin jaamacadaha dalka inaga la qayb qaatay hawshatan waxaan aad ugu mahadnaqayaa hawlwadanada dhalinyarada jaamacadaha ka socda iyo iskuulada dalka ee hawshatan iyada fududeeyay oo aanay suuragal noqoteen haddana iyagu muddada hawlahan socday aanay ahayn dad u heelan hawsha loo egmaday waxaan kale ku boorinayaa dadweynaha Soomaaliland
inay ka faa'iidaystaan muddadatan ayna mustaqbalkooda ku soo saaraan ciddii ay doonayaan ee dal u ah iyaga iyo dalka iyo dadkaba. halka waxaan ku kala diraynaa sanaaduuqdii ay ku jireen kaadhadhka codbixiyayaasha labada gole ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee jamhuuriyadda Somaliland. runtii waa maalin wanaagsan in dadkii ay ku soo noqdaan kaadhadhkii ayna bilaabato berito oo bishu tahay 11. runtii waxaanu faraynaa muwaadiniinta isdiiwaan geliyay inay qaataan kaadhkoodii si ay ugu doortaan qofka ay rabaan. baanu ku celcelinaynaa muwaadin qaado kaadhka oo ku codee, muwaadin qaado kaadhka oo ku codee. qof walba goobtii uu iska diiwaan geliyay baa loo geynayaa. waxaanu ka codsanaynaa xilligoo adag oo jiilaala dartii inaad misana taxadar samaysaan oo kaadhka qaadataan. oo kaadhkeenu haddaynu nahay gobolka Sool way noqon jireen ay maanta noqon. maanta xabad laga waayaa sanaaduuqda maran ay noqdaan marka idin rajaynaynaa. qolada dhalinyarada ee shaqaalaha komishinka iyagana waxaanu faraynaa inayan dad gaar ah siin kaadhka oo qofka iyo kaadhkila isgaadhaan. maanta waxaanu u taaganahay ama aanu markhaati ka nahay in komishinku shaqadiisii step u soo socotay maanta meel fiican ay marayso gebagabana ah. aanuna u taaganahay amba bixii kaadh qaadashada ama kaadh bixinta. ilaahay baa mahadda ina soo gaarsiiyey iyo nimcada nabadgelyo ina ku soo gaarsiiyey. runtii waa wax yacnaa loogu mahad celiyo ilaahay, qofkii ka soo shaqeeyena loogu mahad celiyo. waayo sababtoo ah shaqo adag oo inay say u qabsoomayso iyo adeegeeda iyo hawsheeda ay leedahay bay muddada intaa leeg ku soo gebagabeeyeen oo arkanaa meesha aynu taagannahay. tan marka aynu qaadanno waxa inoo xiga waa biriishkii ugu dambeeyey lagu kala baxayey insha allah haddii ilaahay idmo gebagabadeedii. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan dadka faraynaa oo populationka faraynaa meel kastoo ay joogaan intiina maqlaysa inay kaadhka qaataan. kaadhkani waa hiilkana waa la qaataa. kaadhkani waa dagaalkaagana waa la qaataa. muhiimadda waxaan leeyahay arrintaa iyada populationow kaadhka qaata, war qaata baan leenahay. sida mas'uuliyiintu sheegeen maanta waxaynu halkan ku kala diraynaa qalabkii inaga caawinayay inaanu dib u siino dadka kaadhadhkii ay horey isu diiwaan geliyeen. marka xisbiga u cid ahaan waxaanu leenahay ammaan fara badan aan u soo jeedinaynaa shaqada adag ee komishinku hayaan oo shaqo qaran ah. sidoo kale waxaanu halkan ka hambaliyeynaynaa ciidamada qaranka geesiyaasha ah iyaguna hawshan qaybta weyn ku leh oo runtii ilaahay wax loogu mahadnaqaa. dadka gobolka Sool waxaanu leenahay kaadhkiina qaata oo fursadda aad ku soo dooranaysaan musharaxiinta matala doona deegaanadiina sida fursad ugu heshaan. maanta taagantahay kaadhkii qaata oo kaadhka qaato ka faa'iideysta ayaanu leenahay. dhalinyarada halkan laga diray ee xilka qaran la saaray waxaanu leenahay mas'uuliyad culus baa idin saaran. qarankiina u shaqaynaysaan, dadkiinaba u shaqaynaysaan. shaqadu sideedaba waa cibaado. markuu qofku qarankiisa u shaqaynayana ee uu si daacad ugu shaqaynaya ilaahay ayuu janno kaga helayaa. bulshoy kaadhka qaato, kaadhka codbixinta qaata. bulshoy kaadhka qaato, kaadhka codbixinta qaata. meeshan shaqadii qaranka lagu hayaa. shaqada qarankana dastuurka dadka u qaybiyey oo ninba meel uu ka taagan yahay. kolley inta ciidamadu ma la hadlaya anugu militariga booliska. waxaa la inoo dhiibay ee la inagu aaminay ee aynu ilaalinayna waa masiirka ummadda. waxaan idinka codsanayaa idinkoo marka hore foojignaa inaad foojignaanta inta hawshaasi naga baxayso si laba laabtaan oo hadday booliska tahay militariga cid walba wixii ay qaaday ee ammaano ah inay iska xil saarto ilaalinteeda, sii kaxaynteeda iyo soo celinteedaba. waayo qarankii lahaa ayagu u dhiibtay uu ku aaminay. shaqaalaha komishinku dadka say wax ugu qaybanayaan bay unu xisaaran yihiin. qolada komishinka oo halkan joogta runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gacanta weyne ama anaga ha noqoto ay naga geysteen xagga amniga ka geysteen ama si ay shaqada u wadaan. kolley ammaanadii loo dhiibtay rag ka soo baxay bay u muuqdaan. ilaahay ha barakeeyo.
qof waliba hadduu isaga xil saaraya sida nimankaas isaga xil saareen shaqada loo igmaday qarankan wuu istaagayaa annaga ammaan ahaan militariga iyo biliiska waxaana laga rabaa uun inaannu intaan kari karro culays isa saarro oo waayo waa nafur weeye mustaqbalkii ummadda weeyaan in la ilaaliyo waxa aan gacanta ku hayno si ilaahay dartiya loo ilaaliyo oo gacanta lagu hayo oo loo foojignaado gaadiidka kaxayntooda iyo soo kaxayntooda iyo goobaha ay tagayaan ku ilaalintoodaba waa mas'uuliyad ciidamadu qaateen oo ay qaranka ka qaadeen waana laynagu eegayaa horena labadii jeer hore u dhacdayna si wanaagsan bay inoogu dhacday ilaahay wax ka baryaan si ka wanaagsan inoogu dhammaato